madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo ku sugan magaaladani Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa uu kormeer kala gadisan ku soo maray aqalka madaxtooyada oo dhawaan laga dhagax dhigay duleedka magaalada Boorame iyo dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Cabsalaan ee magaaladani. Geesta kale waxa uu kulan albaabadu u xidhan yihiin la qaatay xildhibaanada aqalka golaha deegaanka ee Boorame kaas oo saacad qaatay iyadoo ay warbaahintuna dibadda joog ka ahayd kulankaas ayaa markii uu soo idlaaday waxa halkaas warbaahinta kula hadlay duqa degmada Boorame Maxamed Xuseen Meedhane kana warbixiyay kulankii madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha deegaanka ee Boorame ay wada qaateen. boqolkiiba boqol madaxweyne sharaf bay noo tahay inaan soo dhex fadhiisataa oo xaaladda degmada ogaataa oo xildhibaanada golaha loo doortay aragtidooda iyo fikirkooda iyo sida wax wadaan ogaataa waa mid waajiba wax qabadkayga ugu horeyna oo labada fasal iyo qalabkoogiyan qabanay iyo baaburkan degmada u iibinay iyo xabada agafta sheewalka iyo shaqaalaha 4 bilood mushaar lahaan siinay inaan wax qabanaan madaxweyne diyaar u nahay degmadii aan u dhaaranay wax qabadkayga horumarkeeda inaan ka dhabaynaan diyaar u nahay aad baan kugu soo dhaweynaynaa degmadaadii geesta kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici uguna baaqay golaha deegaanka ee Boorame inay noqdaan kuwa u taagan midnimada iyo horumarka guud ahaanba degmadan. Badantoomasantiin yartaan yeeray markay ay soo ajibteen waxa kale oo muhiim ah hay'adaha u koorgala xaaladda degmada iyo hawshan wadaaruntii iyo isku duugaabino diska degmada la yiri doortay suuqyada sida uu shaqeyn lahaydeen waabadeeda ay wax isku leedahay madaxweynaha baa la shaqeynay baan ugu duugaabinayaa in ummadda dooratay ay ka mas'uulka tihiin ay kitaabka gacanta u saarteen in si cadaalad ugu shaqeysaan waxa ka mid ah وأنا البروجكت تقول جت بهاي شروعية هاي الشرع ودعم هالكاي اللي بيجي سيد حد المويه مكروتي اللي نعضو هذا البراء يبرعو يبورما إذا كان معتقد يبوه سيما كهرة على نجاح بعدين سوق قاعد يدوي كله. isku soo wada duubo oo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa tan iyo markii xilka degmada ay la wareegeen duqa cusub iyo ku-xigeenkiisa oo dhawaan la doortay kulankii ugu horeeyay la qaatay saaka oo jaamacadda Somaliland Space Channel Boorame.